waxay noo balana karti iyo hufnaan la heli karo waxay noo balana karti iyo hufnaan la hubo ودور اللي بان ودور شعبك بلان مسؤول ذلك كرا عدالة دوني كرا الله دنيا كإلال كرا يا حاو بيامي كرا ودور محمود خليل تتعود صدي ودور ندادية ندال بحيها نديرنا حيه نداع دوا انجير محمود خليف waxa uu ku dhashay magaalada Qardho sanadkii 1965 wuxuu dugsiga Quraanka iyo dugsiga hoose ku qaatay magaalada Garowe kadibna wuxuu dib ugu laabtay magaalada Qardho halkaas oo ku qaatay waxbarashadiisii dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxa xusid mudan sanad dugsiyeedkii 1983 maxamuud wuxuu noqday ardaygii dugsiga sare ugu natiijada sareeyay gobolka Bari sanadihii 1984 iyo 85 wuxuu galay shaqada gurmadka qaranka ee qaybta mashaariicda horumarinta qaranka maxamuud khaliif wuxuu u wareegay caasimadda Soomaaliya Muqdisho isagoo sii watay waxbarashadiisii wuxuu bilaabay jaamacadda ummadda ee Gaheyr qaybta engineeringa jabiye ayaa ku qalin jabiyay ardaygii ugu sareeyay dafcadiisa kadib markii la isla arkay sareynta buundooyinkiisa ayaa howlwadeenadii jaamacadda ummadda waxa ay ka codsadeen inuu kalkaaliye macallin ka noqdo isla jaamacadda ummadda qaybteeda engineeringa halkaas oo uu ku caawiyay arday badan oo Soomaaliyeed sanadkii 1991 ayuu waxbarashada heerka labaad u aaday wadanka Talyaaniga kadibna sanadkii 1992 ayuu deganaansho ka helay dalkan Mareykanka wuxuuna ka soo degay magaalada San Diego ee gobolka California isla magaaladaas ayuuna mar kale ku diyaariyay shahaadada civil engineering kadibna injineer maxamuud wuxuu u soo wareegay gobolka Minnesota sanadkii 1996 halkaas oo uu ka bilaabay tabac iyo fikir ganacsi oo isgarab socda injineerka ayaa ka bilaabay dalka Mareykanka shirkadda weyn ee Midwest Companies oo xarumo ku leh labada magaalo ee kala ah Minneapolis iyo St. Cloud oo ka tirsan gobolka Minnesota iyo magaalada Kansas City gobolka Missouri haddaba dadaalkiisa ayuu sii waday oo intaasi kuma aanu ekayn injineerku ganacsigiisii waxa uu u sii fidiyay bariga Afrika halkaas oo 2009 uu ka aasaasay shirkado kale oo ganacsi isaga ayaana madax ka noqday shirkadahaas oo kala ah Khalif Properties Victoria Juice iyo shirkadda diyaaradaha ee Ocean Airline dhammaan shirkadaha iyo ganacsiga injineer maxamuud uu aasaasay ayaa noqday kuwa guuleystay dad badan oo Soomaaliyeedna ay ka heleen shaqaaleyn taakulayn iyo taageero injineer maxamuud ma uu deganaa magaalada kaliya waxa uu kamid yahay geeleyda reer Puntland wuxuuna kadin geela ku leeyahay baadiyaha Puntland injineerku waa aabale xaas iyo 10 caruur ah waxaana xusid mudan sanadkii 2015 isaga iyo qoyskiisa in lagu marti qaaday aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka halkaas oo uu kula kulmay madaxweynihii talada hayay xilligaasi Barack Obama isku soo duubay injineer maxamuud khaliif xasan ayaa ku guuleystay noloshiisa waxbarasho ganacsi qoys laguna yaqaana caawinta iyo ka qayb qaadashada arrimaha bulshada Soomaaliyeed guud ahaan injineer jabiye waa aabe hogaamiye iyo ganacsade caan ah ummadda dhexdeedana ku leh sharaf iyo qadarin ودور اللي بان ودور شعبك بلان مسؤول ذلك كرا عدالة دوني كرا ويد الميغا كايلال كرا تيحا وهيا من كرا ودور محمود خليف تتعود سدي ودور دوقة مقالة مينيابوليس جيكوب فراي ayaa taageeray musharaxa madaxweynaha Puntland injineer maxamuud khaliif jabiye waxa uu sheegay duqa magaalada Minneapolis inuu soo booqan doono Puntland hadii maxamuud khaliif jabiye loo doorto madaxweynaha Puntland doorashadan dhici doonta 2019 duqa magaalada Minneapolis Mayor Jacob Fry ayaa xafiiskiisa ku caasumay musharaxa xilka madaxweynaha Puntland injineer maxamuud khaliif xasan
oo loo yaqaano injineer jabiye. Well, we're very excited about you. Thank you. And we love that you have a deep connection to the city of Minneapolis. soo dhoweyn diiran kadib meeyarka ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan sida weyn ee uu ugu faraxsan yahay in injineer jabiye uu soo ajiibay casumaadiisa. sidoo kalena mas-uuliyiin kale ayaa soo dhoweynta ku weheliyey duqa magaalada Minneapolis. When you win, I'm going to come visit. Thank you. So you win first, and then I'll come visit afterwards. All right. gudoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis mudane Cabdi Warsame iyo la taliyaha meeyarka Cabdulquduus Donyaali ayaa sidoo kale ka mid ahaa madaxdii injineerka ku qaabilay kuna soo dhoweeyey aqalka weyn ee looga arrimiyo magaalada Minneapolis ee loo yaqaano City Hall. Mayor Fry ayaa sheegay in injineerku muddadii ku noolaa gobolkan Minnesota dhinaca dhaqaalaha wax badan uu ku soo kordhiyey. Well, you clearly have a wonderful perspective on how to bring jobs to Puntland, as you've been doing it here quite a bit in Minneapolis. I understand you employ about 800 people. Yes, thank you. Injineer Jabiye ayaa sheegay in shaqooyinkii wanaagsanaa ee dhinaca dhaqaalaha ee uu ka qabtay gobolka Minnesota uu qorsheynayo kuwa ka wanaagsan inuu ka qaban doono dalkiisa hooyo haddii loo doorto xilka madaxweynaha ee Puntland. duqa magaalada Minneapolis ayaa taageeray musharax injineer Jabiye wacadna ku maray in uu soo booqan doono Puntland goorta ganacsade Maxamuud Khaliif la doorto. Well, we're very excited about you. Thank you. And we love that you have a deep connection to the city of Minneapolis. Yes. It's obviously with the largest Somali population in the entire world outside of Somalia. It's a relationship that we look to foster and improve and strengthen everywhere. I am not joking when I say I want to come visit. I would like to. I very much look forward to visiting. Sister city relationship with Bosaso. Puntland ayaad soo booqan doonaa goorta lagu doorto oo aad guulaysato. aad ayaana ugu faraxsanahay Maxamuud Khaliifow. waxaan jeclahay xiriirka qotada dheer ee aad la leedahay magaalada Minneapolis. waa meesha kaliya ee dunida bulshada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ah ay degan yihiin adduunka oo dhan. annaga iyo Soomaalida waxa naga dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan oo aanu ku naaloono. waa xiriir aanu ka shaqaynayno sii kobcintiisa iyo adkeyntiisa meel walba aanu joogno. marka aan leeyahay haddaad guulaysato waan imanayaa Puntland, arrintaasi igama aha kaftan, arrintaasi waa iga dhab. waanu ku rajo weynahay guushaada. sidoo kale haddii ay jiraan wax kale oo aan kugu taageeri karo fadlan ila socodsii aan sameeyee. sidoo kalena waxaa xusid mudan in sanadkii 2015 injineer Maxamuud Khaliif lagu marti qaaday asaga iyo qoyskiisaba aqalka cad ee looga taliya dalkani Mareykanka xilligaas oo uu talada hayay madaxweynihii hore ee dalkani Mareykanka madaxweyne Barack Obama. ودور اللي بان ودور شعبك بلان مسؤول ذلك كرا عدالة دوني كرا ويد الميغا كايلالي كرا تيحا وهيا من كرا ودوب محمود خليف تتعود سدي ودور bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka rag iyo haweenba intooda taqaana Maxamuud Khaliif waxa ay isku raacsan yihiin inuu yahay Maxamuud shakhsiyad lagu yaqaano mas'uuliyad maamul iyo taakulaynta kuwa tabaalaysan. in badan oo kamidana waxa ay soo jeedinayaan in la joogo xilligii injineer Jabiye la siin lahaa fursad ay filayaan in laga faa'iidi doono. magacaygu waa Khalid Ahmed Maxamed, زينب حسن محمد، يوسف عبد الله، دكتوريس اللول حسن لاري، liibaan aadam شنو موسى عيسى cabdulqaadir oo ku nool magaalada Minneapolis. Rose Wagner, and I am the Director of Operations at Midwest Home Healthcare. waxaan ka mid ahay dhalinyarada deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland. waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa musharaxnimada Maxamuud Khaliif oo u taagan jagada madaxweyne ee Puntland 2019. waxaan taageersanahay injineer Maxamuud Khaliif Xasan. waxaan ku taageersanahay arrimo badan ee ka mid yihiin inuu yahay nin karti leh, akhlaaq leh, runtii waxtar ah. diin fiican, caqli badan, sharaf badan, dadka masaakiinta u gargaara dalka iyo dibadda. qof kasta oo dhibaataysan ama baahi ha jirto ama waxtar ha u baahnaado waa dadka ugu horeeya oo jaaratiga bixiya. qof u danqada dadka waxtara
run ahaantii qiimeeya baahida ay bulshadu ay qabto. Mahmoud is a caring, compassionate person. He's very gracious. He has impacted many lives, and I've been a witness to a lot of that. Mahmoud is intelligent beyond belief, but also humanitarian at the same time. Maxamuud Khaliif waa nin dalkiisa iyo dadkiisa jecel waliba ummadda Soomaaliyeed oo dhan aynu u kala sokaynin. And he's got a very high standard of ethics that he abides by. siyaabaha aan ku taageeray Maxamuud Khaliif waxaa ka mid ah inuu yahay ganacsade, inuu yahay aqoon-yahan, inuu yahay family man, inuu yahay nin siyaasi ah, isla markaasna wax badan ka soo qabtay dalkii, isla markaas wax badan ka qabtay dalkan aan joogno. waana xaqiiq, waan ognahay cid walbana waa og tahay waxqabadkii uu qabtay injineer Maxamuud Khaliif Xasan. haba noqoto waxbarasho, dhanka caafimaadka iyo daryeelka bulshada reer Puntland. waxaan aaminsanahay sida uu horumarka naftiisa u gaarsiiyay inuu u gaarsiin karo dadka reer Puntland. sida ogtihiin walaalayaal isbedel baa ka soo socda dunida meel walba fiirisiin. waxaan aaminsanahay inuu markaan uu yahay nin horumar maanta haddii uu xilka madaxtinimada qabto uu gaarsiin karo meesha ugu wanaagsan. waxaan isleeyahay Maxamuud haddii jaanis maanta la siiyo jaaniskiisu wuxuu noqonayaa jaanis laga faa'iido mujtamaca iyo dadkana wax weyn ku soo kordhiya. waxaan u baahannahay dalka in la gaarsiiyo nabad xasilooni siyaasadeed. waxaan rajaynayaa insha Allah shacabka reer Puntland inay soo dhaweeyaan xilka uu rabo inuu Maxamuud Khaliif u qabto sanadka soo socda 2019. marka waxaan ku bogaadinayaa dhammaan shacabweynaha Puntland inay doortaan injineer Maxamuud Khaliif Xasan kaasoo noqon doona ninka kaliya ka saari kara dhibaatada iyo hoggaan la'aanta siyaasadeed ka haysata xagga maamulka Puntland. marka waxaan ku bogaadinayaa dhammaan shacabweynaha mar labaad aan ku celcelinayaa inay doortaan hogaamiye injineer Maxamuud Khaliif Xasan oo ah hoggaan daacad ah wax badan qabtay diyaarna u ah xilkaas inuu qaato. reer Puntland Maxamuud waa nin aanu absolutely taageerayno 100% aaminsanahay inuu Maxamuud wadanka horumar gaarsiinayo. haddii aad rabtaan madaxweyne macquul ah oo reer Puntland wax u qabta oo aad ku diirsan doontaan Maxamuud Khaliif doort. Mahmoud, thank you for all that you do, and thank you for all that you've done for all of us. waxay noo balanahay karti iyo hufnaan la heli karo. waxay noo balanahay karti iyo hufnaan la hubo. u door xildhibaan u dooq shacabka Puntland mas'uul dadaali kara cadaalad dooni kara oy dulmiga ka ilaalin kara dayaxa u hayaamin kara u doob Maxamuud Khaliif dadka codsadee u door. madasha munaasabadda ayaa lagu casumay siyaasiyiin Soomaali Amerikaan ah iyaga oo goobta ka soo jeediyay khudbado waxaana ka mid ahaa Ilhaan Cumar, Cabdi Warsame, Maxamuud Nuur, Hodan Hello, Siyaad Cali iyo sidoo kaleba Peter McLagan oo ka mid ah komishanka Hennepin County ee magaalada Minneapolis. siyaasiyiintan ayaa dhammaantood waxa ay u muujiyeen musharaxa taageero diiran iyaga oo sheegay in injineer Maxamuud Khaliif ay taageersan yihiin ayna ku yaqaanaan wanaag badan. maxamuud aniga Bashiir aan markhaati ka ah, Bashiir Madoobe, Bashiir Muuse, Bashiir Madoobe inta joogo waa markhaati ka ah. markii aniga doorashada aan ku jiray gaar ahaan doorashadii labaad oo ahayd xogaa doorasho taf ahayd, maxamuud aad iyo aad buu ii taageeray shakhsiyan taageero oo dhinac walba ah buu noo muujiyey. marka taasna waa ugu mahadcelinayaa. marka maxamuudna aad buu ugu mahadsan yahay. waana aaminsanahay qof nin soo shaqaystay waayo aragnimo badan leh, wax soo tabcay, ganacsato ah, Minneapolis maxaa la lahaa gobollo kale maxaa la lahaa Mareykanka ku yaallo, Nairobi, Soomaaliya, intaas wax ka soo qabtay. waa in la tijaabiyaa, mana xumo inuu siyaasadda ka soo qayb galo. laakiin waxaa u sheegaa maxamuud siduu haddeer u qurxoon yahay muusii qurxoonaa doona markuu siyaasadda galo. oo siyaasadda dadka aad iyo aad bay u beddeshaa. laakiin kalsooni baa ku qabaa inuu ka soo bixi doono xilkan. aniguna shakhsiyan taageeradeeda wuu haystaa. siduu ii taageerayay in ka badan in la egna waa taageeri doona hadduu ilaahay idmo. Soomaalidu waan aragteen reer Minneapolis waxaan bedelnay siyaasadda Soomaaliya adduunka oo dhan markii la fiiriyo doorashooyinka. marka wax weyn ma ahan in nin reer Minneapolis ah oo Minneapolis ka bilaabay shaqadiisa inuu asagu laftigiis
hami galo inuu bedelo puntland soomaaliyana bedelo marka taasaan ku taageeraynaa maxamuud khaliif ilaahay khayr ha siiyo guul baan u rajaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waxaan waqti badan sugaynay oo annaga oo dhan aan ku hami weynayn uu caawa dhacaayo oo taas ay tahay in walaalkeen maxamuud khaliif uu isku soo sharaxay in uu u tartamo madaxweynaha puntland aniga sanad ka hor camanaan mar isla fadhiisanay waxaan ku dhahay waxaan maqmaqlooyaa in aad xiisaynaysid inaad jago u tartantid maxaa ka jiro marka wuxuu yidhi wixii xiise waa soo dhaafeen waxaan u malaynayaa in ay soo rurumooyaan dhulkiiaan tagay waxyaalahan soo arkay waxay ila tahay in wax badan aan ka suubin karo marka arrin yar oo aniga aan tartanyaalkayga iga soo martay aan u sheegay oo ahayd in markii aniga kursiga aan u tartamayay koowaad dadka badanaa ay dhaheen haddee ilhaaney qof aan la kasaynin oo gabar yaroo iska soo tartantayaa tahaye see dadka oga dhaadhacsiinaysaa inay ku codeeyaan haddana haddeertaan dadka ilaa iyo hadda way dhahaan ilhaaney cunug yaraa tahay oo iska soo tartantaye sidee dadka kuuga codayn doonaan marka maxamuud waxaan ku dhahay waxaan u malaynayaa in dad badan ay saas ku dhihi doonaan maxamuudow siyaasadda lagaama yaqaano weliga adoo siyaasadii sheegaysid laguma arkin waxaa tahay nin oo businessman ah oo America ku nool ciyaalkiisa ay midna dharkii dadka dhan ay ku wada labisan lahaayeen meelaha lagu daabaco ka gado midna ay Harvard iyo Yale iyo Columbia ay isku dagaalayaan wiilkaagana haddee shirkadaha hadda maamushid uu ka dhaxli doono marka intaas lagu yaqaanaa siyaasad laguma yaqaano reer Puntland waxay ku dhihi doonaan seen ku dooranaa marka wuxuu yiri ilhaan intii aan Puntland joogay xaafad kasta aan tago laba oday kasta aan la shiro markaan iswareysano waxaan isku fahanaa in labadaas oday meel aan iska soo galno waxaan isku fahanaa maalin inaan wax isku darsanay waxaan isku fahanaa inaan nahay dad isla wada shaqayn karo oo meel isku raaci karo marka waxaan dhahay hadda sheekada aad sheegaysid waa aniga sidii aan ku raayay aniga dadka waxay ii malaynayeen gabar yar oo masaakiin oo laamiga iska socoto laakiin waxaynan ogeen in 15 sano meel kasta wax yar aan dhigdhiganayay oo waqtigii markii la gaaray waxayga aan soo aruursaday marka waxaan filayaa in dadka maxamuud aaminsanayn ama isdhahayo in uu yahay nin America iyo meelo kale ku mashquulay Puntland iyo siyaasadeeda iyo sidii wax loo kala qaybsado inuusan fahansanayn inay yaabi doonaan January markii la gaaro oo waxyaalo badan uu meelo dhigdhigtay oo aruursan doono marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hamigaaga weyn waxyaalaha badan dadka u qabatay Soomaalida badana waxay ay ku mahmaahaan kiitiisa ka soo baxaato kala ku darsado maxamuud sidii annagoo kaleete badankeenna meeshaan fadhina aan nahay wuxuu ahay qof soo qaxay nolol adag soo maray America yimid asoo waxba aanan haysan maantana uu yahay dadka milyaneerka statekan kaliya maahine America oo dhan la xisaabsado waxaa kaleeto uu maxamuud yahay qof kasta oo Soomaali ah oo wax u baahnaay wax ku darsaday dadkeenan dhan oo siyaasiyiinta ah oo hamiga wada lahaa wadankan in ay ka tartamaan
ilaa walaalkeen ilaahay u naxariisto oo noo afbilaabay xuseen samatar oo bishaan hadda soo dhammaatay ay ahayd bishii uu geeriyooday 5 sano ka hor ilaa aniga oo Soomaali ah oo maanta Congress u socdo uu kulligeen na garab istaagay uu na taakuleeyay taasna waan kaaga mahadcelinaynaa taasna waxay tusaysaa inuu yahay qof vision dheer leh qof aaminsan in haddii waxyaalo yaryar laga bilaabo wax weyn ay iskugu darsami karaan an maanta asiga investmentigii uu suubiyey uu dadka badanaa ku dhiirigeliyey uu baray in investmentigan ay suubiyaan maanta Soomaaliya reer Minnesota hadda aad tihiin aad u dirsanaysiin qof Congress برينا وحان أمالينا يا هاد جانيوري هدي لقارو وحان درسانينا بنتلان مدحوين هيد عصب أورير مينيسوتا محمود أبيهي مركزتو أو أن وح راذينايو وحو إيدها فولكا فول لباح أذيك ما أنتم حان كلها هاي فولكا فول لباح إلهي هكو قوليسيو ميل كستا مرتد إلهي ولال هكو هردقو وحان رجينا يا دادك بدنا آنان كافلنين نقول إن أي كفرحان قوش هذا جانيور هدي إلهي لقارو مركوا مهد سنتهين كل جين رير بنتلان انت كالاتبا وان إذين وذا سلام يا أنيقا reer Puntland aan ahay taxpayer aan ahay guriyaan ku leenahay waxaan rajaynayaa markii aad madaxweyne noqotid in aniga iyo walaalahay kaleete oo Minnesota jagooyinka ka hayo oo wili Puntland aan arkin kulligood inaan wacdid oo aan ku soo wada booqano oo aan kugu join gareyno inaugurationkaaga waa mahadsantahay إلان خير الله كسيو إلان عمر waxay u hadashay si aad u diiran oo khatar ah af Soomaali waliba dad badan baa waxay u qabaan markay arkaan Ilhan Omar, my friend Abdi Warsami, Mohammed Noor, who will be elected to the legislature this election this fall. But I come here on behalf of Hennepin County to welcome you and to wish you well. The role of leadership is important. The role of stepping forward and providing leadership to your community, it's so important, and I want to honor you for stepping forward and taking on that role. And when you talk about peace, prosperity, and progress, peace, prosperity, and progress, those are values we all share. Assalamu alaikum. waxaa sharaf iyo inaan caawo idin hortaaganahay oon mataqaanaa aan u dabaaldegayno casho sharafka walaalkeen Maxamuud Khaliif markii uu soo galayay baan niyadda ka xantay waa inaan u sheegaa marka waxaan iri inuu guuleysanayo waxaad ku garanaysaa dhalinyarada qurquruxda badan ee geesaha uu iska dhigay marka waxaa la igu yiri waaba caruurtiisiiba kaba si fiicanba marka sidii la idin sheegayba waxaa la yidhahaa Hodan Xasan waxaan ahay qof u taagan xildhibaan walaalkay Maxamuud wanaag fara badan ayaan ka maqlay waxaa la yidhahaa ninkii kabaha ka tolanaysa kibihiisa la fiiriyaa soo maaha Maxamuud intuusan soo istaagin investment fara badan ayuu wuxuu ku sameeyay dalkii marka maanta markuu soo istaagay waa inaynu garab istaagnaa soo sidaa maaha marka Maxamuud wuu ku mahadsan yahay waxa uu dadkii u qabtay waxa uu dalkii u qabtay iyo investmentiga faraha badan ee uu geliyay qoyskiisa iyo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed taa daraadeed wax kale badan lagu dooranin taa daraadeed in lagu doortay weeyaan balse waa shakhsi wanaagsan waa aabo wanaagsan waa leader wanaagsan waa qof marka uu qalma kursigan in la siiyo marka waxaan jeclaan lahaa dadka inaga daawanaya wadankii idinkuna inaad garab istaagtaan doorasho ciyaar
diyaar ma aha wixii aad garab xoolo haddiidan wax kale siinaynin ducada ka daba tuura marka maxamuudow garabkaaga annagana waa ku taageersannahay insha allah waa helaysaa kursigan runtii maxamuud khaliif waa shakhsi u qalma xilka madaxweynaha puntland sidaan ku ognahay waa qof nala degan kartidiisa aqoontiisa saaxiibtinimadiisa iyo sida uu u gargaaro bulshadoo dhan waa qof ka dhex muuqda gobolka Minnesota sidoo kale wuxuu ka dhex muuqnaan doonaa insha Allah gobolka Puntland waxaan filanaynaa sidoo kale inuu ka dhex muuqnaan karo uu mudan yahay inuu noqdo madaxweynaha inoo soo socdo insha Allah 2019 waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galay munaasabadan aan maanta ku maamuusayno musharax maxamuud khaliif xasan oo aad wada garanaysaan runtii qiimo weyn ayay aniga igu fadhidaa siyaad ahaan waxaan ka markhaati kacayaa intiina badanna amaba aad dhammaantiin igu raaci kartaana maxamuud inuu yahay shakhsi leh karti hufnaan iyo alla ka cabsi hadalka aan leeyahayna ma aha mid aan iska leeyahay ama maxamuud ku raali gelinayo ee mid kasta dhacdo ka turjumaysa ayaan idinla wadaagi karaa idinkuna waxaa suurtagal ah munaasabada saasoo kale ah oo fara badan inaad garanaysaan And Mahmoud, I want to wish you the best of luck in your campaign, and clearly the community supports you. So good luck and best wishes. Thank you, everybody. Chimigwech. musharaxa ayaa sheegay in Puntland ay ka jiraan caqabado badan kuwaasoo soo socday muddadii maamulka Puntland uu jiray ayna u baahan tahay isbeddel dhab ah iyo in wax laga qabto xafladdu intii ay socotay ayaa laga sheekeeyay taariikhda maxamuud khaliif iyo in uu hoos ka soo bilaabay nolosha iminkana uu marayo heer sare doorashada Puntland ayaa ku aadan bisha Janaayo 8 sanadka inagu soo aadan ee 2019 waxaana madaxweynaha soo doorta sida caadada 66 xildhibaan oo beeluhu ay iska soo xuleen maxamuud Dhulyadayn Somali Cable dalka Mareykanka